السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أصحابتا كحيران channel كينا لدن لايف ستايل meel walba aad dunida ka joogtaan waxaa idin leeyahay bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo reen ayaa idin rajeynayaa walaalahayga qaaliga ah maalin labad video ayaan soo duubay asxaab badan ayaa kasoo falcelisay oo aan kaga hadlayay last video ugu dambeeyo ahaa waxaan uga hadlayay arrimaha khuseeya familiga gaar ahaan wuxuu ka hadlayay inay gabadha ayada bilowdo ama gabadha xaaska ah inay ayada bilowdo inay hadiyadaha dhiibto ama ayada yacni wadooyinka romantic loo mari lahaa inay ayada bilowdo so dad badan ayaa kasoo falceliyay oo dhahay abaayaladan dadka dhan isku wada mid ma ahan mana wada awoodaan inay hadiyad wada dhiibaan ama ay inta suuqa tagaan ay wax soo iibiyaan so marka caawa barnaamijkeena waxaan ugu talagalay inaan jawaabaha su'aalahaas aan uga jawaabo inta karaankeyga ah inta kalena dhammaan walaalaha oo ku xiran channelkeyga waxaan ka codsanayaa fikradahooda inay ayagana commentiga noogu reebaan wixii ani iga maqan adigu kugu jira wixii adiga maqanne laga yaabaa in ani igu jiraan laakiin ma ku dhahay maanta wax ayaa ku dhaamaa oo ana ka fiican ama ka fikrad fiican kuma dhahay laakiin anaga dhan iskama maarano hadii midba midkeena kale waxa uu dheer yahay la wadaago anaga hadaan youtuber naadaan fikrad idin keeno idinkana waxaa loo baahan yahay anaga bini aadan aan nahay kaamil manihin sida idinkoo kale aan nahay soo markii idinkana waxaa idinkaga baahan dadka daawadayaasha ah inay fikradahooda commentiga ay ku reebaan insha Allah marka barnaamijkeena aan gudagalo waxba hadalkeen idinku daalinin barnaamijka wuxuu ahaay ladan dadka dhan isku wada dhaqaalo ma ahan yani ma wada awoodaan inay hadiyad dhiibaan abaayo aan kaaga jawaab walaashay macaan soo dhawo horta marka horeeto khaasatan su'aalashan laba gabdhood abaayo ayaa isoo weydiiyeen comment iguma soo qorin maasha Allah waa ugu mahad celinayaa walow ay qurux badnaan lahayd inay comment igu soo qoraan comment iguma soo qorin waxay ku soo qoreen qaybta WhatsApp-kayga soo aniga waxaan ku dhahay description-ka hoos ee channel-kayga waxaa yaala number-kayga qof walbo fikrad inuu ila wadaaga rabo ama qof walbo yacni wax asiga maankiiska guuxa inuu ila qaybsado rabo lambarkeyga ayuu meesha kasoo qoran karaa hadduusan commenti kusoo qori karin lambarkeyga ayuu igala soo xiriiri karaa insha Allah mana noqon dooni dadka ku dhageysta koolka dadka insha Allah weligeena kuma dhageysanay mana jecleysana qof walaalkeyga igala soo xiriiray rag ahaa dumar ahaa waxaan jeclahay mar walba u taaganahay bulshada ku xiran channelkeyga inaan qanciyo har iyo habeenba insha Allah dhamaanteena dhanka positive ka aan wada fiirno qofka banaadin waaye sidoo kale adoo kula mid yahay mar oo mashquuli kara mar waa caadi insha Allah marka jawaabteena aan guda galno abaayo soo dhawow waa sax waa runta xaqiiqan waan wax loo baahan yahay banaadinka oo dhan isku wada dhaqaale ma ahan isku wada jeebna ma ahan jeeb weyn jeeb bariis jeeb dhexaad la wada yahay qof walba oo ku qoslayo ama arkaysid ma ahan inuu yacni uu yahay sida aad u maleynaysid laga yaabe si ka duwan inuu yahay waa xaqiiqtaas qof walbana noloshiisa asiga ay u gaar tahay asiga ayaana ka faaloon karo maanta aniga qof haddaan la kulmo oo faraxsan ii sheekeyna ila qoslaayo micnaheeda ma ahan inaan qofkaasi ogahay noloshiisa wax ay tahay laakiin kaliya ani waxaan ka hadli karaa يعني muuqaalka markaas qofkaas uu kula hortaagan yahay laakiin kama faaloon kartid noloshiisa gudaha waxa ku aasan waana xaqiiq qof walba binaadina ayay ku dugantahay midaasi waxa ogaataa muhiimada nolosha waa sax horta lacag waa lagama maarmaan qof walba inuu lacag haysto waa lagama maarmaan laakiin waxa ogaataa waxaan Ilaahay ku qadarin inaadan heli karin yani wax rizq Ilaahay uu ku qoreen qof binaadin inuusan ka weecin karin wax Ilaahay ka weecina qofku siin karta ma jirto dunida hadii wax walbo la isku keeno wax Ilaahay uu ku diiday cid ku siin karta ma jirin waana taas xaqiiq qofka taas waxaan og ilmahaas yarka xitaa way fahmi karaan way ka warqabaan midaas wax haduu Ilaahay uu ku diiday yani inaysan sina aadan u keensan karin waxa ogaataa lacag qiimo ma lahan lacag kaliya waxay qiimo leedahay ama lagu xisaabtami karaa markay ka fog tahay mar gacantaada haday ku jirto hal maalin hadii adoo lacag la'aan ahaa hadii hal maalin $200 ama $100 ay gacantaada soo gasho waxa laga yaabaa qoraxda markay dhacayso inaadan haynin oo waxyaalo u isticmaashay marka xisaabtid baa ogaan kartid hal $1 hadaa u bixisid xitaa aadan yani xisaabi karin oo kaliya ay qiimo leedahay intay ka fog tahay muhiim ma ahan lacag dhismaha qoyskana lacag way ka qayb qaadan kartaa oo way dhisi kartaa laakiin
haddii lacagtii qadar rabi meesha ay uga maqan tahay oo ilaahay xaggiisa ay uga maqan tahay micnaheedu ma aha noloshaada inaad u xayirtid lacag micnaheeduna ma ahan inaadan qofka aad la nooshahay ama gabadha xaaskaaga ama wiilka saygaaga aad la nooshahay inay lacag u xayirto farxadaada ma ahan farxadaada way walba adiga u mari karo waa sameyn kartaa haddii koob shaah isla qaybsanaysiin farxad ayaa yani iskula cabi kartiin farxad ayaa iskula noolaan kartiin muhiim ma ahan lacag waa wax maanta la heli karo beri la waayn karo mana jirto qof dunidan dusheeda saaran oo loogu magac daray hebel waa inuu lacag lahaadaa hebel waa inuu faqiir ahaadaa qofna looguma magac darin qofkii maanta haysta beri ma haysto kii maanta haysanina beriyu haystaa marka taas maankaaga geli qadar rabi kaaga maqan tahay sax bini'aadii kaama qaadi karo kumana siin karo laakiin marnaba ha ku xirin farxadda oo reerkaaga dhismaha reerkaaga inaa yani lacag ma haysti yani wax biilkayga ka baxsan iyo kirada gurigayga wax ka baxsan iyo dhardharka ilmaha ama waxyaalaha shoppingka guriga wax ka baxsan ma heli kari yani ma awoodi wax oo banaanka inaa baxo hadiida soo gado wax ka keeno ma awoodi ma ku xisaabtantay maanta qofaa intaasan haysanin ma ogtaa guriga adiga aad degan tahay maanta kuu qurxan kuu sharxan tv adduun wax walba ay kuu taagan yihiin qofaa laga yaabaa inuu maro uu hogsado uusan haysanin still noloshiisa uu ku qanacsan yahay buushashay ku jiraan kaamamay degan yihiin noloshooda markay saaka soo kacayaan waxay maanta isdhahayaan koobkan shaah afu ku bilow meel kuma oga laakiin saas ay tahay way faraxsan yihiin wayna ku qanacsan yihiin muhiimadda nolosha waxay tahay inaad qanacsan tahay qofka aad la nooshaarto inaad ku qanacsan tahay qofka aad la nooshaa mar haddaad ku qanacsan tahay wax walba imaanayaan just adi sameey inaa ilaah ku kalsoonaatid ilaah isku dhiib mar walba ilaah bari wax walba sida adiga u rabtid isi ka fiican way kuu noqonayaan waa haddii qalbigaaga uu nadiif yahay qofka aad la nooshahayna marka aad daacad u tahay oo yani si dhab aad yani iskugu dhiibtay noloshiisa si dhab aad yani u aaminsan tahay in maalmaha kamid ah noloshaada uu kaafin karo hadduu wiil yahay hadduu gabar tahaybo aa isleedahay maalmaha kamid ah noloshaada wax way ka bedeli doontaa ama wax wuu ka bedeli doonaa qofkaas xaqiiq noloshaada wax way ka bedelmay laakiin dad qaar waxaa jiro qaasatan gabdhaha la hadlaa laga yaabay ninkeeda inuusan dhaqaalisas fiican uusan haysanin oo noloshiisa iska dabaqyada hoose ah kuma qanacsano maanta dhan waxay u hanqal taagan tahay dadka kale guryahooda ee maanta dhan ku maqan tahay ay fiirinaysaa ninkii niyad fiican ma siinayso markuu waxaas ma aragtay u dhaho weji xun ay siinayaan laakiin mar haddaa saas aa u dhaqmaysid lagama yaabo adigan inaad noloshaas ka baxdid waa ku dhex jira waa ku dhex gaboowe laakiin mar haddii oo adoon waxba haysanin laakiin farxad aa iskula nooshihiin qanacsanaan aa iskula nooshihiin xaqiiq noloshiina way furfurmaysaa wayna isbedelaysaa waxaa laga yaabaa haddaa isdhehaysay ninkaaga waxyaruu helaa haddii adiga si daacad ee ula nooshaa mar walbana ilaah u baryaysid oo waxa aa heshid kastirta uu kuu keeno aad kala baangeynaysid yani kala meel aad dhigdhigaysid waxaa laga yaabaa inuu ilaah kuu barakeeyo oo farxadda ay kuusii ziyaado oo kasta sirta ay kuusii barakoodo ay kuu badato laakiin waxyar hadduu kuu keeno haddaa ganuunicisid oo gafuurka aa sii taagaysa ka war dhibkeeday leedahay mar walba dhinaca wanaaga in nolosha loo dhigo ayaa horumar lagu gaaraa qoysaska soomaalida inta badan waxay u burburaan dhanka wanaag wax kama fiiriyaan mar walba waxay fiiriyaan dhanka xumaanta hadday gabar tahay hadduu wiil yahay qalad haddii la galo mar walba qaladkaas xaaladas taagan aa laisku qaadaa aa laisku maxkamadeyna laakiin qalad markaas uu taagan yahay haddii loo fiiriyo dhanka wanaaga ama wixii wanaag hore laiskugu soo sameeyay haddii laisku fiiriyo waa xaqiiq nolosha wax badan ayaa iska bedelayso noloshiina wax badan ayaa dhismaayo dad badan waxaa jiro oo isdhihi karo dadka youtube-ka soo fariisanayo oo ka hadlayo arrimaha qoyska ayaga noloshooda way burbursan tahay ayaga noloshooda waa si kale laakiin waxaa ogaataa shanta far ilaah ma wada simin dada youtube waxay usoo fariistaan show yani noloshooda way actigareynayaan real life-ka eeg waxa ay markaas ka hadlayaan ada real uma haystaan yani waxa ay matalayaan laakiin mar walba waxaa qurux badan mar haddaa bulsho aad soo dhex fariisanaysid xaqiiqda noloshaada inaad ka hadli kartid haddaa adiga yani guri faraxsan aa ku jirtid waa inaa arrimo guri faraxsan ama sida qof walaasha ama qof walaalkaaga sida uu gurigeed u dhismi lahaa inaad ka hadli kartid haddii dhib uu ku haysto iska aamus ha ka hadlin yani farxad waayo adiga farxad ma haysid goorme farxad ka hadlay dadaa waxay ka hadlayaan arrimo horumar
ayaga horumarka ma gaarsiisano markaas waxay ku leeyihiin saasa horumar loo gaaraa saasa waxaas loo sameeyo mar walba waxa qurux badan nolosha markaas at that time nolosha aad ku jirtid inaad ka hadli kartid laakiin wax aadan adiga ku jirin hadii matalaad aad u imaatid ma qurux badna dad badan laga yaabaa adigoo waji yani noloshaada si u qaab daran tahay aan farxad iyo yani waxyaalo kale u muujisid dadkaas ay ku maleeyaan qof wanaagsan ama qof fiican adigina aadan ahayn taasna dambigeeda meesha ku sii yaalo dambiga kala kulmaysa ma fiicno hadaaba youtuber tahay oo qof walaalkaaga isku dayaysid inaad wax ka bedeshid xaqiiq uga hadal xaqiiqda ula imaa taasna waxa uga hadlaa youtubada badan way is yaqaanaan soo man rabi ina afaarahooda agalo man rabi ina ku dheeraado sidoo kale man rabi ina idin ku dheereeyo barnaamijkayga kaliya waxa idin kugu soo gunaanada waxay tahay ma rabtaa inay noloshaada isbedesho yes gabar walba way rabtaa inay nolosheeda isbedesho haday murugo ku jirto waxay rabtaa inay farxad hesho haday farxad ku jirto xitaa waxay jeceshahay farxad laba jibaaran inay hesho farxad waxa heli kartaa marka qanacsan tahay farxad waxa heli kartaa marka daacad tahay farxad waxa heli kartaa marka qalbigaaga uu nadiif yahay uu u yahay qofka adiga aala nooshahay uu u yahay qalbigaaga daacad qofka aala nooshahay ha ahaado faqiir ha ahaado taajir muhiim ma ahan lacag laakiin waxa muhiim ah in la isku qanacsan yahay in la isku faraxsan yahay dad badan waxa arkay anaga waa is jecelnahay anaga waa isku faraxsanahay laakiin arimo ee gurigeena family u dumo family gurigaaga waxba kuma sameyn karo hadii labadiina isku qanacsantiin hadii labadiina isku kalsoontiin family haday wax walba ay sameeyaan wax idin kama qaadi karaan laakiin family goormo gurigaaga dumin kara marka daciif tahay kalsoonida markay daciif ka tahay daacadnimada markay daciif ka tahay rabitaan qofkaas aarad markuu daciif ka yahay family uu ku burburin karaa oo waxyaalo daciif uu kugu burburin karaa laakiin hadaa qof aad adag tahay oo qofka la nooshahayna aad ku adag tahay in qofka noloshiisa meel iskala soo baxdeen xaqiiq meel iskala soo bixisiin taasna way ka dardaaran mar walba ahaa qof daacad ahaa qof yani qofku ula nool yahay ku qanacsan kalsoonin waa muhiim marka insha Allah taas ayaa dardaarankayga waxaan idin leeyahay mar walba guriga tiirarkiisa hala adkeeyo si mustaqbalkaaga yani ilmo qurux badan mustaqbalka inoogu soo baxaan insha Allah ilmaha mustaqbalkooda mar walba ku soo celceliya waxa dhisi kara waa hooyo aabo waxa burburin kara waa hooyo aabo ilmahan hadda wadooyinka lagu dilaayo waxyaalaha muqaadaraadka isticmaalayo family oo buuq iyo barbalaan ku dhismay ayaa koosgareey family farxad iyo wanaag iyo kalgacayl oo ka jiro marna ilmahooda ma halaawo soo marka waxaan idin kaga sii tagaa sidaas iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh